waxaa la yiri inaad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa macnaheedu ma aha oo kaliya inaad mar walba faraxsanaato balse sidoo kale waa inaad garato waqtiyada adag inay weli jiraan maalmo wacan oo ka dambeeya waxaa in badan dhagaheena ku soo noqnoqday magacyada iyo dhigaalada dad guul ka gaaray nolosha u babacdhigay guul darrada sidoo kalena magacyadooda ku qoray baalal ifaya si dadka ka dambeeya u akhristaan sirihii ku duugnaa guushooda dadkaasi marka laga yimaado inay ka sinaayeen badankoodu ka bilaabidda nolosha meel hoose iyo in guul darrooyinku ay ahaayeen intii ay ku jireen tartanka guusha saaxiib joogto ah oo aan garabkooda ka bixin haddana waxaa jira dad kelmado si jees iyo dhayalsasho ah loogu yiri ay u noqdeen kuwa ku booriya koritaanka salaanka guusha kuwaasoo markii ay gaareen fiinta sare ee guusha dib u soo milicsaday kuwii shalay dhayalsanayay awoodooda si ay u dareensiiyaan in himiladu ay tahay furaha keliya ee nolosha muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan uga hadlaynaa dad guulo xaqiijiyey hadallo si jees loogu yiri awgeed iyo sidoo kale kuwo kelmado kooban oo dhiirigelin ahi ay u fureen albaabo dhiirigelin la'aan aan u furmeen magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waaberi Media kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta marka aad tahay arday dhigtay iskool ugu yaraana 10 maado oo kala duwan lagu dhigo waxaa hubaala inaadan noqonayn mid ku wada guuleystay maadooyinkaasi haddii aad noqotidna waxaa hubaal ah in marka laga tago dadaalkaaga aadan wada jeclayn maadooyinkaasi kuwa cayimanna aad si gaara u jeceshahay taasoo ka dhigta macallimiinta qaar marka ay dhaayahoodu arkaan arday aan xiisadiisa danaynayn inuu mala awaalo sheegidda iyo faalinta waxa uu noqon doono mustaqbalka ardaygaasi iyagoo adeegsanaya hal kelmad oo ay ka wada siman yihiin macallimiintaasi taasoo ah mustaqbalka noloshaada waxba xaqiijin maysid waana isla erayga uu ku yiri ardaygan aan sheekadiisa ka hadlayno Adham Sharqaawi ma ahayn yaraantiisii arday ku fiicnaa luqadda Carabiga barashadeeda marka loo diro ardayda curinta maqaalo ma ahayn Sharqaawi mid soo qoro maqaal u qalma fasalkii uu xilligaasi marayay taasoo ka dhigtay macallinkiisii Carabiga mid maalmaha ka mid ah ku tuura buugiisa una sheegay inuu dhimanayo isagoon curin hal kelmad oo faa'iido leh oraah uu si dhayalsi ah u yiri macallinkani ayay ahayd laakiin uu u qaatay ardaygani loolan iyo taxaddi si uu u tuso macallinkan in oraahdiisani ay khaldanayd waana tan uu ku guuleysan doono Adham muddo kooban kadib wuxuu kobciyay naftiisii ka shaqeeyay garashadiisii luqadeed sidoo kalena wuxuu hariya habeen curinayay maqaalo iyo oraahyo si uu u kobciyo garashadiisa luqadeed ka hor intaanu sanado kooban gudaheed soo saarin buug oo ugu magac daray Kushmalik kaasoo lagu tiriyay mid ka mid ah buugta ugu iibsiga badnaa saameyntiisa ka soo wuxuu buugani gaar la ahaa aftahanimada iyo xulashada oraahyada uu adeegsanayay Adham taasoo micno kale u yeeshay buugga dabcan Sharqaawi ma ilaawin macallinkiisii aynu soo sheegnay isagoo safxadda ugu horeysa buugga ku xardhay oraah oranaysa waxaan u hibeynayaa macallinkaygii luqadda Carabiga ee ku soo tuuray buugga wajigayga iguna yiri waxaad dhimanaysaa adigoon curin hal kelmad oo faa'iido leh Ian Leopold waxa uu ahaa arday dhiganaya jaamacadda Hobart ee dhacda dalka Mareykanka Ian wuxuu isku diyaarinayay inuu qalin jabiyo sida caadada ahna arday walba qalin jabinaya waxa khasab ku ah diyaarinta barnaamijkiisa qalin jabinta iyadoo ardaygu badanaa barnaamijkiisa ku saleynayo fikrado uu arko inaan horey loo sameyn xalna u noqonaysa dhibaato taagan si uu ugu guuleysto qalin jabintiisa sidoo kalena uu muujiyo in sanadihii jaamacaddu aysan ahayn kuwa uu ku khasaaray Ian wuxuu dhiganayay kulliyadda dhaqaalaha wuxuuna ku qotomay mashruuciisa qalin jabinta suuqgeynta taasoo ka dhigtay Ian mid curiya fikrad cusub wuxuu arkayay in dhalinyarada jaamacadaha dhigata da'dooduna u dhaxayso 18 ilaa 24 sano aysan ahayn kuwa xoog la saaro marka adeeg la suuqgeynayo wuxuuna ku saleeyay fikradiisa inuu curiyo nidaam suuqgeyn oo xoog saaraya ardaydaasi gaar ahaanna ardayda degan dhismayaasha jaamacadda wuxuuna ku saleeyay fikradiisan in goobaha ay ku kulmaan ardaydu sida cafeteriada jaamacadda iyo sidoo kale garoonka jaamacadda iyo goobaha lagu soo bandhigo natiijooyinka ardayda inay abbaaraan oo ay xoog saaraan iyagoo u qaybinaya waraaqo yaryar oo xayeysiis ah
oo qaab bilaasha loogu qaybinayo ardaydaasi. fikradani ayuu u arkayay Ian mid isbedel ku samayn doonta qaabka wax loo xayeysiin jiray xilligaasi. kadib muddo dheer oo uu ka shaqaynayay fikradiisan, wuxuu ugu dambeyn dhameeyay diyaarintii barnaamijkiisa qalinjabinta, wuxuuna u gudbiyey supervisorkii jaamacadda ka hor intaanu ku warhelin Ian inuu dhacay oo aanay qancin fikradiisu supervisorkiisii, taasoo ka dhigtay Ian midaan isdhiibin, waqtina geliya sidii uu waaqac ugu bedeli lahaa uguna tusi lahaa macallinkiisii inuu saxsanaa. Ian ma ahayn xilligaasi mid shaqaysta, sidoo kalena wuxuu ku khasbanaa inuu jaamacadda mar labaad dib ugu celiyo maadada uu ku dhacay si uu u qalin jabiyo. lacag dhanna wuxuu haystay $48 oo keliya, laakiin wuxuu go'aansaday inuu bilaabo fulinta barnaamijkiisa. Ian wuxuu samaystay tiim la shaqeeya kuwaasoo ka koobnaa ardaydii ay isku jaamacadda ahaayeen, waxayna bilaabeen soo daabicidda maqaallo ka hadlaya mawaadiic ardayda ku saabsan sida horumarinta naftooda, qaabka ay shaqo u heli karaan, iyo talooyin ay u baahan yihiin ardayda dibadda waxbarashada u doonanaysa. maqaaladaasi ay qorayeen waxaa ku hoos dugnaa xayeysiimo ay si sarbeeban ugu soo bandhigayeen maqaaladaasi, kadibna waxay si horudhac ah ugu qaybiyeen ardayda. muddo yar gudaheed waxay noqotay fikradaasi mid aad u soo jiidatay ardaydii, kana dhigtay kuwo xiiseeya maqaalada cusub ee soo socda. Ian iyo asxaabtiisuna waxay ka soo xereeyeen dabcaddii koowaad lacag kor u dhaafaysa $2,000. kadib waxaa sii xogaystay kobaca fikradaasi, iyadoo 4 sano gudaheed gaartay xaqiijinta faa'iido kor u dhaafaysa $250,000 sanad walba, waxayna ku fiday dhammaan jaamacadaha dalkaasi Mareykanka. Ian ma noqon mid natiijadii mala awaalka ahayd ee macallinkiisa ku qanca ama isdhiiba, wuxuu u jeeday macquul ahaanta fikradiisa, taasoo ka dhigtay mid ku dhiirada fulinteeda, waana miraha uu gurtay muddo yar uun kadib. The teacher walks in and he placed a book in front of me and he asked me to read. And I started reading and I stuttered while I'm reading. And next thing you know, he slapped my face. Boom! Maxamed wuxuu ahaa yaraantiisiiba mid ku suman celcelinta hadalka, isagoo marka uu kelmad u jeedinayo ardayda iskoolkiisa ay dhibi jirtay soo saaridda hadalku, taasoo in badan sabab u noqon jirtay inay ku qoslaan kuna jeesjeesaan ardaydu. laakiin Maxamed maalin maalmaha ka mid ah waxa uu yimid macallin ka mid ah macallimiintiisa, wuxuuna ku yidhi kelmado kooban oo beddeshay nolosha ardaygan. macallinkan ayaa ku yidhi, way kugu qoslayaan kuguna jeesjeesayaan, laakiin adigu ahmiyad ha siin, keliya garo naftaada, wajah baqdintaada, sidoo kalena joogtay kobcinta naftaada. erayadan ayaa sabab u ahaa curashada Maxamed ka duwan Maxamedkii ay cabsi gelin jirtay ka hor hadalka dadku. Qaxdaani wuxuu bilaabay kobcinta naftiisa iyo kor u qaadidda garashadiisa luqadeed, wuxuuna muddo kooban gudaheed ku noqday aftahan hadalladiisu ay dheelitiran yihiin. ma noqon mid ku guulaysta aftahannimada dalkii uu ka soo jeeday ee Sacuudiga oo keliya, balse wuxuu noqday mid guul ka gaara adduunka oo dhan, isagoo sanadkii 2015 ahaa ku guulaystaha tartanka aftahannimada iyo hadaljeedinta adduunka oo dhan. guusha Maxamed marka laga yimaado inay ahayd guusha inan yaraantiisii ahaa mid aan aqoon hadaljeedinta suuban, haddana tartanka uu ku guulaystay Maxamed wuxuu ahaa luqadda Ingiliishka, halka luqadiisuna ay ahayd Carabi, taasoo ku tusaysa baaxadda ay leekayd waqtiga iyo dadaalka uu geliyey naftiisa. Qaxdaani, Ian iyo Sharqaawi marka laga yimaado inay ka sinaayeen dhiiranaanta iyo dhabaradayga u ogolaaday ku guulaysashada loolanka nolosha, haddana waxaa hubaala daawade in oraahyo si dhayalsi ah loogu yidhi ay beddeshay noloshooda, kana dhigtay kuwa u babacdhiga mawjadaha nolosha, gaarana finta saraysa ee guusha, si kuwii shalay faalinayay guuldaradooda ay u arkaan guushooda, iyagoo ay dhici karto in weli ay taagan yihiin meeshii ay shalay taagnaayeen.